arooryo hore wadaadku masaajidka ayuu dadka wacdi uga jeedinayaa kadib salaada subax oo wax yar ka hor laga baxay waxaa noo bilaabatay shaqo hal maalin ah oo aannu ka qabanayno magaaladii aannu xalay ku hoyanay ee Buursaalax Rabadaan qabashada shaqada maalintu waa qaboonada inta qorraxdu qabowdahay sidaa darteed waa inaan jarmaado ku bilowno hawsha suuqyadu waa sidaan subaxii oo laguma soo kallaho dunida kale ee muslimiintana meheradahay cunnada bisil samayn jiray bisha barakaysan ee Rabadaan habkan ayay u banidan yihiin markii aan saxmadi jirin aroortii oo sidan suuqu yahay jabaqda ugu badan waa tan shimbiraha codadka cudoon ee kala duwan samaynaya waase haddii magaalo u dhir badan tahay sida Buursaalax magaalo dhismaysa iska rogooyinka dhagaxa daabula waxa ay ka mid yihiin inta jarmaada goobaha ganacsigana midba mar ayaa la furayaa cabaar kadibna suuqu habkan ayuu u camirmayaa Buursaalax waxa ay darajada degmada heshay muddo laga joogo 3 sano waa magaalo ku taal halka dhulka ciidka ahi uu ka bilowdo dhanka waqooyina 55 kiiloomitir ka xigta magaalada Gaalkacyo sharciyada dhiraysan waxaa dheer xafiisyadii aanu tagnay oo madaxda ku shaqaynaysay ay kuraasi u taalay dhirta harkeeda waaba meel daaraha ka qabow gudoomiyaha degmada ayaa nooga warramay dadaalka dhirtaasi la geliyay ilaa iyo 2800 oo geed oo aan runtii oran karayo intooda ugu badnayd way baxeen dadka oo aad fahmi karaysaan maaragtay inaysan u bislayn maaragtay dhirta iyo micnaha ay leedahay iyo annagoo ay jirtayba awood aan ku kontroolno ama geed kasta aan ku waraabino ama aan maaragtay subax kasta ku dul istaagno aan lahayn haddana waxaan ku guuleysanay ilaahay fadligiisa dhirtaas inay maanta baxdo $167,000 ayaa ku baxay laami magaalada dhexmara 1 kiiloomitir oo laamiya iyo 500 oo tallaabo oo jay ah dhammaan dhaqaalahaasi ku baxay jidka ma jiro dawlad ama dad qalaad oo ka taageeray Buursaalax sida naloo warramay waa tusaale muujinaya tacabka la isu geeyo waxa laga dhaxlo labada laami oo aragteen wax isku tashi ah oo annagu aan qabsanay way JLBG kuma jiro hay'adana macaawin cid kale wax kuma darsan runtii wuxuu ahaa barnaamij tijaabo ah oo aan fududeyno aad iyo aad u dhib badan in maaragtay halkaan oo aad arkaysaan maaragtay marka laga shaqeynayo in maaragtay dadweynaha inaad fahansiiso ay qaadan karto waqti aad iyo aad u adag oo ay dadka aysan qaadan karin balaami baa dhisan karaa 1 kiiloomitir oo laami ah iyo nus kiiloomitir jay ah baan halkaan u saarnay lacag tiro badan baa ku baxday ilaahay fadligiisa waa ku guuleysanay muddo dheer oo aan wadnay isbitaalkan waa midka kaliya ee ka shaqeeya magaalada waa meel mashquul badan oo bukaanku aanu ka maarmin inuu yimaado dunida idil waxaa la isu sheegay kala fogaada si aydan virus isu qaadsiin howlwadeennada halkan ma damana oo dareenkaasi way qabaan faraxalkan maalin Rabadaan oo aan cunno jirin waxa uu ka mid yahay waxa sanadkan dunida ku soo biiray digtoorka ayaa bukaan socodka doonaya in la baanto uga digaya halis ka daran tii halka keentay tabarta goobtani waa inay dadka uga digaan laakiin qalabka lagu baaro COVID-19 waxay la qabaan Soomaaliya inteeda kale waxaan sameynaa oo badan inaanu isfarno sida xanuunka looga kala durki karo oo looga fogaan karo xanuunka isaga laftigiisa taas sababteedu waxay tahay intaan ku filanahay anagu waa intaas inaanu isu tilmaano kala fogaanta inaanu gacmaha mayrno intaasaan anagu awoodnaa suuqyarahan la naashnaashayo dhawaan ayaa magaalada laga dhisay waxaa loogu talagalay in la dejiyo 20 ganacsatada yaryar ah oo halkaas suuq yar ka furaya laakiin geedkan aan ka dheerayn waxaa goob bannaan oo harkiisa ah hilib ku iibinaya ugaaso baahida kawaan la'aantana waxay kala siman tahay inta Buursaalax hilibka ku qasha waa noo jeedaan qurca hoosaan joognaa shimbuhu waa nagu xaarayaan roobku waa noqonayaa waxa way dayac waan u go'aynaa ma garad baarta meesha wax ku jabinayno meesha hadda wax ku hayno waxa weeyaan nagu dhaxan baan soo qonaa 9 kacna markaan tagno meel wax qabad meel dugsile iyo meel maarta asturan midna wax kuma qalanno qurac shimbiro ku xaarayaan baan joognaa
waxaan joognaa magaalada Bursaalax waxaan rabnaa waxa weeyaan suuq hilib iyo suuq maxaan rabto wax qabad loo asturan abaartii sima ee dalka ka dhacday 3 sano ka hor waxaa ku xoolo beelay reer guuraa Soomaaliyeed oo ku soo barakacay magaalooyinka Maryan waxa ay ka mid tahay caruurta reer guuraagaasi abaartu cayraysay ee magaalada Bursaalax soo degay laakiin waxa ay ka nasiib badan tahay in badan oo aan weli helin fursad waxbarasho 500 oo Maryan ka mid tahay waxa qaybsaday 4 dugsi hoose oo ku yaala magaaladan oo waxbarasho bilaash siinaya arrintaas waxa dadaal ku bixiyay maamulka degmada sida uu noo sheegay inaan iskuuladii ka codsano inay ardadan Soomaaliyeed oo walaalahooda ay qaybsadaan oo maaragtay ay soo dhaweeyaan oo ay wax baraan sababtoo ah hadii ardaygii aan waxba hadii ilmihii aan wax la barinin oo uu magaalada ku nool yahay hadhowtu wuxuu culays iyo dhibaato ku noqonaya magaaladii waxaan xasuustaa dadweynaha inaan ku wacyi gelinay maadaama uniformka aysan gadan karin oo aysan haysan buugaagtana in ardaydaas aanu qayb ka qaadano uniformkana ardadii hore oo walaalahooda uniformkay ka baxeen magaalada oo dhan in laga soo aruuriyo si maaragtay ay u isticmaalaan uniformkaas Axmed Iraad Cali maamulaha dugsiga Caynul Cilmi ee Maryan ay wax ka barato ayaa noo sheegay tirada ardada loo keenay iyo heerka ay hadda marayaan waxaa la ii keenay liiska ardada ah oo iskoolka loogu talagalay inuu caawiyo 50 arday waxa ay soo gaadhay 50ka arday 37 arday hadda waxa joogo 30 arday oo fasalka saddexaad ardadaas waa dad wax baranayo dadkaas 7 qof oo ka tagtay maahana 30 kale waa hal fasal bay wada joogaan fasalkii maalintii la wada keenay haddana waa saddexaad wayna wada joogaan sanad dugsiyeedkii tagay ee Puntland ee 2019 83 goobood waxbarashada shahaadiga ee dugsiga sare waxa uu fariistay ku dhawaad 5,000 oo arday 1888 ayaa ahaa gabdho waa boqolkiiba 38 sanadadii horena tirada gabdhuhu intaa waa ka sii yarayd inkastoo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya haweenku ragga ka badan yihiin haddana goobaha waxbarashada ragga ayaa ku badan dugsiga sare ee Bursaalax muddadii uu jiray sanadba sanadka ka dhameysay waxa siyaadayay tirada gabdhaha laakiin wali lama gaarin halkii la rabay inkastoo rajadu ay kor u socoto maamulaha dugsiga ayaa nooga warramay sida ay isu soo taraysay tirada gabdhaha sanadba sanadka ka dambeeya 12 arday ugu horeysay ka baxday iskuulka hal baa gabar ahayd halkii gabar markaa sanadkii ku xigay ee 2012 ma walahayn gabdho marka number of students ka way ka sii badanayaan last year waxa ka baxay gabdhaha ka baxay waxaan 19 arday form 4kii meesha hadda ay yihiin 26 arday oo gabdhuhu ay yihiin marka sanadba sanadka ka sii dambeeyay habluhu way sii kordhiyaan oo waxa la gabdhuhu lambarkoodu way sii kordhiyaan meesha total students ay yihiin 380 ayagu macnaha waxa la yiraahdo waa 129 biyo gelinta magaalada ayaa ka mid ah horumarka halkan ka hirgalay dhulka maalintii aanu tagnay waxa ka mid ahaa ceelkan oo magaalada inta badan biyaha siiya 5 uu ka mid yahay ayaa Bursaalax ka qodan suuqii aanu saaka duubnayna mar kale ayaanu gabaldhaca duubaynaa waa galabi habeen huwan oo waxa dhigta loo taagayaa adanka salaada maghrib si loo afro wax yar kadib waa ka laga aadabay masaajidkii saaka wacdigu ka socday inta u dhaxaysa salaada maghrib iyo taraawiixda suuqu waa mid camiran goobaha ganacsiga ayaa furan haraadkii maalinimo hadii la reebayna inta badan meheradaha ayaa lagu qaxweynayaa oo lagu sheekaysanayaa bandoogii Puntland halkan waa ku dhig iyo mid ka dhaqan galay magaalooyin aan dhaweyn oo Bursaalax lagama badareemin subaxii labaad ayaanu wareysanay gudoomiyihii hore ee Bursaalax ka hor inta ay degmada noqotay waxa uu noo sheegay isku tashigan iyo arrimahan badan ee hirgalay in ay tahay dadka Bursaalax oo fahmay waxa ummadda ka dhaxaysa ee la wadaago Bursaalax ma ahan degmo cid kaliya degan tahay waa degmo laga helayo qof walba oo Soomaali ah waxa laga helayaa Bursaalax isagoo wuxuu joogaa Soomaali ah
waddankiisa jooga xor ah sidoo raba u ganacsan kara sidoo raba u degi kara cidna aysan kala hayn sidaas marka keenaysa degmada in maaragtay xawaaraha hadda ay ku dhismayso iyo sida loogu soo socdo waxa keenaya waa meel Soomaaliya oo dhan degan tahay waxyaabaha ay ku horumarday kamid tahay in wax la wada leeyahay in la isla fahmo Buur-Saalax waxa isla fahamtay iyo degmadeeduba maaragtay wax la wada leeyahay isla aroortaasi oo aanu ka safaray Buur-Saalax annaga oo ku sii jeedna magaalada Gaalkacyo jidku waa uu ka hawl yar yahay meelo badan oo aanu ku safraynay waa masaafada oo intii ka yar 55 kiiloomitir oo aanu ku soconay jid xagaaf ah oo 2 taayira intii aanu safraynay xareeddu wadooyinka sidan ayay u jiiftaa geela lumayna geeljirtu habkan ayay u haybiyaan ما شوفين ما هي كذا كل ده ما هنقارن في عادي هل ما رتي ليش والله بنو تسمتي بدني تليفي ما كيش يكون انا عاد جري هيك كنتني مال لما يقول شيء لا حاجات لا فوق عن وهيل كل مالكم صحن كما تعرف حديث سيء ها magaalooyin badan oo kamid ah gobolka Mudug oo aan safar ku tagnay 3 degmo oo kamid ah gobolkaasi Buur-Saalax Tawfiiq iyo Jiriban gobolladii kale ee aanu ka shaqayn jiray waxa ay kaga duwan yihiin internetka xawaarihiisa oo 3G ah maxamed xasan dhalo warbaahinta Daljir Gaalkacyo